سلطان كجود بيلها هرتي سلطان سعيد سلطان عبد السلام oo ay bulshada deegaanka ugu talagashay inuu kala soo qayb galo munaasabad xarimo sharafeed ah ee lagu qabtay deegaanka gobolka Sanaag ee degmada Ceelbo ayaa muddo 10 kiiloomitir u jirta meesha ay ka dhacaysay munaasabadda xarimo sharafeedka ayaa gaadiidka ka hortageen waxaana u soo gulbiyeen halkii ay ka dhacaysay munaasabadaasi kadib goortii uu soo gaaray halkii ay ka dhacaysay munaasabadda xarimo sharafeedka ayaa suldaanku bulshadii deegaanka ee halkaas ku sugnayd ayuu mid u gacan qaaday kadib waxa loo soo dhaqaajiyay halkii ay ka dhacaysay xarimo sharafeedka oo lagu qurxiyay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed munaasabadan ayaa halku dhigeeda wuxuu ahaa si uu suldaanku markaas ugu duceeyo beesha deegaanka ee degmada Ceelbo xog waraysi war iyo warcelin kadib ayaa suldaanka gobolka suldaanka beelaha hartay suldan siciid suldan cabdisalaam ayuu duco dheer oo muddo badan socotay ayuu la kacay wuxuuna ugu dambeyntii loo soo galbeeyay suldaanka degmada Ceelbo ee gobolka Sanaag halkaas oo iyaduna qaybo ka mid ah bulshada deegaanka ee degmada Ceelbo ay ku soo dhaweeyeen kadibna la soo gaarsiiyay hoygii uu ka dilahaa degmada Ceelbo imaashaha suldaanka uu yimid deegaankana Ceelbo ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo lagu jiro maalmihii barakeysanaa ee ciida ahaa ee ciid al-adha Axmed Cabdullaahi Ciise Axmed Cashuur degmada Ceelbo ee gobolka Sanaag dhaxal ma u lahayn